codadka digniinta ayaa laga maqlay guud ahaan Israa'iil abaar 8:15 daqiiqo xilliga maxalliga ah, iyadoo dadka looga digayo khatarta weerar gantaal oo suurtagal ah. Weerarada Israa'iil ayaa kusoo beegmaya xilli ay socdaan dadaalo diblomaasiyadeed oo u dhexeeya mas'uuliyiinta Mareykanka iyo Iiraan, kuwaasoo lagu doonayo heshiis lagu xakameynayo barnaamijka nukliyeerka ee Iiraan laguna baajinayo dagaal, iyadoo wadahadallada la filayay inay sii socdaan toddobaadka soo socda. Iiraan ayaa tanaasulaad ka samaysay wadahadallada, inkastoo madaxweyne Donald Trump oo horey uga hanjabay inuu weerari doono Iiraan si uu cadaadis uga saaro hogaamiyayaasheeda inay aqbalaan heshiiska uu shalay sheegay inuusan ku faraxsanayn hanaanka ay wadahadalladu u socdaan. Donald Trump ayaa amray dhismihii ugu weynaa ee ciidamada Mareykanka ee bariga dhexe tan iyo duulaankii Mareykanku horkacayay ee Ciraaq sanadkii 2003, balse wuxuu wax yar ka sheegay sababta keeni karta in hadda loo baahdo tallaabo ciidan. Iiraan dhankeeda waxay ballan qaaday inay xoog kaga jawaabi doonto weerar kasta. Wasiirka gaashaandhigga ee maamulka Israa'iil Katz ayaa sheegay in weerarka ka hortagga uu ahaa mid looga saarayo khataraha ka dhanka dowladda Israa'iil